xilligan dhashay horta ma qorna runtii oo de waqtigaasi waxa qori jiray maalinta iyo taariikhda iyo sanadka muu jirin laakiin sida muuqata waxaan dhashay intii u dhaxaysay 1952 ilaa 55 qiyaastii maxaan sidaa u leeyahay odayga iyo aabihii wuxuu oran jiray wax dhalatay 52 meelaha hooyadayna waxay oran jirtay may waxaad 55 ayaad dhalatay oo midna 3 sano yareysiin jiray midna 3 sano ayuu weynaysiin jiray marka qiyaastii waa meelaha marka runta laga hadlayo 52 ilaa 55 saddexdaas sano ee faraqa wax ka badan u malayn maayo inay u dhaxeeyaan halkan man markaa ku dhashay halkan daanyaalaha xilliga aad dhalatay deegaanku bartidu waxa bal xiga soo barbaarkaaga bal deegaanku aad buu runtii uga gadisnaa dhulkan inta badan xoolo iska dhul miyo xoolo dhaqata ah ay u badnaanay iska ahayn beerahani way jireen oo de waa la deganaa laakiin inta la qotaa way yarayd dhulkan inta badan iska dhul wuxuu ahaa xoolaha ariga iyo looda iyo geel iyo inta badan ay daaqaan taagaa inoo muuqda oo burcada la oran jiray ayaa waxoogaa beer haruura lagu beeran jiray laakiin intan geela iyo looda iyo geeluna dooxa ayuu ahaa dhulka berigii hore lama kala lahayn oo dhul la kala leeyahay sidan loo kala ootay muu ahayn ee dhul iska degaanaho riyaha ariga xoolaha looda geel oo dooxa inta badan daaqi jiray ayuu ahaa marka meelaha ma riyaha iyo markaan yaraa waxaraha iyo aan ku raaci shaqadii kugu horeysay qabatada mushaharka qaadato ma xasuusta waan xasuustaa de shaqadii qaranka ay horta ahayd oo aan ku lahaa macallin ayaan ahaa iskuul waxaan wax ka dhigi jiray village carab la oran jiray oo muqdisho ku yaal shaqadii qaranka ayaan galay markaan ka soo baxnay ayaa deedna 80 qof annakoo ah ayaa la yidhi qolada warfaafinta ayaa shaqaale qaadanayso 80 qof baanu tagno imtixaan lanaga qaaday imtixaankii 12 qof baanu ku helay waxay doonayeen waxbay ahayd baan 8 qof bay ahayd 8 idaacada iyo 4 80 ha 12 qof laga qaaday 12 qof 8 idaacada qaadanaysay afarta kalena filimada iyo ayaa loo qaadanayay marka dadkii helay idaacada markaasi waxa kamid ahaa aniga الله ونحرستي أحمد حسن عوكي هذا النوح دول نلونجري محمود شيخ أحمد دلمر عبد إدريس دعاري نيكولاس سنين وجي روح براها ومحمد أبن ترى لورنجري ينيكولو إسنا سعيد فارحيو مركا سداسان خيديو مقدشو صدح يتدباتك دمات كيسي إلى أفر يتدباتن كي بلوغيسي سداسان كوكالا طبعا سنة ديدنا كشغيري راديو waxaad naga wartaa marka xilliga idaacada gashay de horta xilliga waxay ugu cusub ahayd telefishin ma jirin wargeysa madax banaana ma jirin radio muqdisho ayuun baa jiray iyo xidigta October oo marka dawladdu ay ahayd kaankii uu lahaa iyo radio hargeysa iska noqdaysna laanu ka tirsan radio muqdisho halku awal idaacad gooniya ka ahayd ومركي يقول سيدي أن إذا عادي تلفزيون ما بجرينه وحيابها أن قالوا مركز كاد إن يربى مركز كهول باتنجر ميلها وحوين بين مركز إلهي إنه عد كيجا للضوء وإذا عاد لقد جيستو وحوين بين مركز إلهي ثرنتي حريرين تيابان كوبلابي وجيسيسيا دينا شيء بي سي دا waxaan ku beeray horta 1983 markay ahayd marka France baan ka tago la iga qortay France bergii waxaan tagay 82kii waxaan ku tagay qaxootinimo waqtiyadii waxaan dagaaladii sokeeyay iyo waxani ay bilaamayeen oo marka meel Lyon la yiraahdo joog jiro koonfurta Faransiiska oo waxaan baran jiray Faransiiska shaqadeedna BBC-da ka soo baxday waan abalaagreeyo waan doontay 8 qof baa imtixaan laga qaaday nasiib waan helay imtixaan qoraal iyo cod iyo wax qadimaad iyo waxa soo dhan leh nasiibka anigii baa helay marka berigaasan sidaa ku galay ilaa iyo 2014 bishii Abriil
intaa waa BBC-du maan ku xidhnaa aan ka shaqaynayay muddo dheer ilaa 30 sano iyo waxoogaa weliba gaadhaysa ka timi wadankii aad tagtay wadan dibadeed idaacaddii ka weyn ka ballaaran caalamiga maxay kala duwanayeen basaran xilliga dib waxay ku kala duwanaan haja waa laba adduun aan shaqo isku lahayn ayay ahayd idaacadda deereedii muqdisho ka tagay idaacad yar bay ahayd oo istuudiyaal iyo dad shaqaale yar iyo qalab aan yacni ahayn qalab aad u casriyeey iyo aan lahayn BBC-du laakiin waa idaacad weyn marka dhowr iyo 30 af oo kala gedisan oo dibadda ah ayaa ka bixi jiray takale BBC-da waxaynu u naqaanaa in idaacadahan dibadda afafka kale ku hadlay Soomaaligu ka mid ah Soomaaligu waa dhowr iyo 30 ka mid ka mid ah weey laakiin BBC-du idaacado badan oo gudaha ay leedahay BBC la yiraahdo oo gudaha la iyo telefishinno laba telefishin oo BBC 1 iyo BBC 2 la yiraahdo dad waxa ka shaqeeya dhowr kuna waa waliba waa la dhimay 3 ilaa 5 kun bay u dhaxayn jireen hadda waxaan maqlay in waliba tan Soomaaliga sameeyay TV adu TV sidaa ma aha waa online ka waa website baa loo sameeynaya online le moogtay TV ma aha TV yani sidiisa ma aha laakiin aakhirka waa laga yaabaa in aad marka taasi waxoogaa hore u marto in meelaha 15 daqiiqo ayna telefishin ama nus saace in la sameeyo waa dhici karta sida qorshuhu yahay in dabcan in badan oo soo shaqeysay saxaafadda soo shaqeysay hadda waxaad ku soo noqotay wadankii oo goobtan aan joogno in aad samaysay beertan in wadanka ku soo noqotay saxaafaddu hadda see tahay iyo wixii talo aad siinayso in ruucada ahaan maxaa adarun hadda horta berigii horeba ugu yaraan sanad kasta mar iyo laba waan iman jiray ama shaqo aanu imaado ama iska aanu imaado ilaa 10 sano 8 sano ilaa 10 sano inuu dhaxaysana BBC-da waxaan kaloon u shaqayn jiray qaybtan BBC Trust la yiraahdo oo imika media action la yiraahdo tababarada bixisa marka tababaradaanu samayn jiray Ghana Yemen Nairobi halkan Somaliland Mogadisho Puntland dhulkaas oo dhammaan tababarada saxaafadda ka samayn jirno aan ka shaqayn jiray tababaradii BBC-da xagga markaan joogay markii dambe senior producer baan ahaa soo saar sare iyo waxaan output editor ka leeyahay output editor ko qofka barnaamijyada wararka tifatirkooga iyo ilaalintooda iyo controlkooga ka madaxda ah maamulka ma aha inta kala aado barnaamijyada iyo wararka hadda waan soo early retirement wax la yiraahdo soo qaatay shaqo ka fadhiisi hore ayaan soo qaatay sabab caafimaad awgeed ayaan soo qadintay retirementkii shaqo ka fadhiisigii hadda markaan soo noqday de horta wax ii cusub kuma soo noqon oo wax sanad walba aan iman jiray ayay ahayd qayb ahaanna deganaa oo halka reer iyo caruur iyo beertan iyo guryo iyo wax ku lahaa oo de aan deganaa laakiin sideedaba markaad eegto saxaafadda isbedel ku dhacay waxa weeye sidii aan kuu sheegay wax walba way burbureen markay wax walba burbureen laakiin waxyaabaha qaar baa dib u soo noolaaday oo weliba horumar weyn sameeyey xagga bacmushtarka ka mid ah waxyaabaha moogtahay soo noolaaday horumarka weyn sameeyey waxa ka mid ah diyaaradaha ka mid ah waxa ka mid ah telefoonnadan iyo telecommunication isgaarsiinta iyo mobilada xawaaladaha ka mid ah shirkadaha waaweyn xawaalada waa intii dagaaladii ka dambeysay waxa soo dhanay horumarka la sameeyey saxaafadda ka mid ah imika dee dhowr iyo 10 telefishin baa Somaliland مثلا كهول قلا إنك سون سوماليلاند laga wada lahayn oo qaar dibadda laga leeyahay inkastoo idaacadaha ugu yaro radio Hargeysa oo qura laakiin meelaha kale dhowr idaacadood baa ka jira jiraayadka maalintii Hargeysa ka soo baxa waa ilaa 15 ee kala gedisan marka taasi yani xaqii tirada horay u mareen laakiin waxaan horumar laga sameeyay waa xaqii tayada iyo anshaxa runtii xaqaasaan aan waxaan leeyahay xaqaa dib u dhac weyn baa laga sameeyay runtii xaqii tayada iyo anshaxa dib u dhac laga sameeyay mooje wax horumara laga ma sameeynin marka waxyaabahan kula talin lahaa wax weeye wartiradii badatay haddaba dhinacii tayada iyo aqoontii xirfadeed iyo aqoontii guudba suxufiyiintii waxa ku yar laba mid waa aqoontii guud oo inakii waxbarasho sare muu helin
intooda badan waxa laga yaabaa intermediate ama secondary markay ku jireen in ama dagaalada ugu dhaceen ama ay ka tageen intii yara wax barbaratay way iska tahriibeen way tacabireen ama waxa sharikadaha kale isgaarsiinta iyo xawaaladaha iyo uga mushaar badan ayay galeen ha jaamacadii male yani kulliyado male saxaafadda ah xarumo iyo iskuulo kale adagoo ma jirto moogtay saxaafadii dadkii lagu tababaraa marka aqoontii xirfadda iyo tii guud ee generalka ahayd labadiiba way liitaan waa in la dhisaa gabagabadii barnaamijka ku jirnaa daawadayaal waxaan ku weydiin doonaa su'aalo yar oo kooban